gabadhii u doonayd wariyaha Sacuudiga u dhashay ee la dilay Jamal Khashoggi ayaa sheegtay in ay diiday casuumaad uu u fidiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ahaa ay booqasho ku timaado aqalka cad ee looga arrimiyo dalkaasi. Artie Sanchez ayaa ku eedeysay Mareykanka inuusan daacad u ahayn baaritaankii ay isguursan rabeen. gabadha oo ilmeynaysa ayaa ka soo muuqatay wareysi telefishinka Turkiga uu la yeeshay waxayna ka hadashay sida uu dareenkeedu ahaa markii ay weyday Jamal Khashoggi isla markaana waxay sheegtay haddii ay ogaan lahayd inuu Sacuudigu rabo inuu dilo aysan ka ogolaateen inuu qunsuliyadaasi galo. iyadoo ka hadlaysa jariiradaasi waxay codsatay in dhammaanba dambiilayaasha ku lug lahaa dilka Jamal Khashoggi la ciqaabo maxkamadana la hor keeno. Artie Sanchez waxa ay sheegtay sidoo kale in saraakiisha Sacuudiga aysan la xiriirin hadda balse ay tagi doonto Sacuudiga si ay uga qayb gasho aaska Khashoggi inta laga helayo meydkiisa. Khashoggi ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda Turkiga 3 toddobaad ka hor. xukuumadda Riyadhna waxa ay beenisay in qoyska boqortooyadu ay ku lug lahaayeen dilka wariyaha Jamal. dacwad oogaha Sacuudiga waxa uu ku tilmaamay dhacdo dil ula kac ah oo loo geystay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu markii ugu horeysay ka dhawaajiyay in uusan ku qanacsanayn sida uu Sacuudiga ugu warbixinayo dhacdadaasi, balse waxa uu sheegay suurtagalka cunaqabataynta inkastoo uu carabka ku adkeeyay saaxiibtinimada kala dhaxaysa Sacuudiga. dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa wacd ku maray in la ciqaabi doono dhammaanba dambiilayaasha ka dambeeyay dilka wariye Jamal Khashoggi. Mohammed bin Salman oo dhawaan ka hadlay shir ganacsiyeedkii magaalada Riyadh ayaa sheegay in dilka Jamal Khashoggi uu ahaa mid xanuun ku reebay dhammaanba dadweynaha Sacuudiga. Bedri Ahmed Mohamed Bedri Saqare, Kalson TV, Hargeysa.